Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar kale waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan dhammaantiis aad u dhan tihiin haddaba dhageystow haddii aad igu cusub tahay isku day channelkan inaad subscribe gareyso gambaleelkana on ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oon soo share gareyna biidnillah haddii aad hore ila sii joogtay nala sii joog isku day inaad muuqaaladeena sii share gareyso like-na siiso comment qurux badanna inoo reebto haddii aad jeceshahay in channelka wax laga bedelo yacni aan soo badino qisooyinka waad nala soo wadaagi kartaa wixii fikirkaaga ana waan tixgelin doonaa biidnillah codsigaaga inoogu reeb qaybta commentiga lana wadaag walaalahaaga kale si ay wax aga faa'iidaan qisooyinka aan soo gudbino waxaan rajeynayaa inaad yacni codsigayga dhan aad sameyn doonto biidnillah haddana waxaan rabaa inaan sii guda galno qiso yar oo aan idinku talagalay inaan idin soo gudbiyo sida tan ayayna ku bilaabanaysaa qisadeennii aan guda galno qisadeennii insha allah nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo dhex fadhiya saxaabadiisii ayaa qoslay deedna saxaabadii ayaa ku tiri rasuulkii ilaahayow maxaa kaa qosliyey kadib waxa uu yiri nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaan ku qoslay waxaan arkay laba nin oo ilaahay hortiisa ku doodaya mid baa wuxuu yiri ilaahayow ninkani dembi buu iga galay ee xasanaadkiisa iiga qaad deedna ilaahay baa ugu jawaabay xasanaad iyo camal wanaagsan midna lama uusan imaanin kadib ninkii baa yiri ilaahayow haddaba xumaantiisa iiga qaad ilaahay baa ugu jawaabay oo xumaantiisa maad rabtaa oo ma qaadanaysaa hadda ayuu ugu jawaabay ilaahay subxaanahu watacaala ninkii baa yiri ilaahayow maxaan dembigu iga galay badalkiisii oga qaataa ninkani deedna ilaahay baa ku yiri dhinacaaga midig ama gacantaada midig eeg ninkii baa dhinaciisa midig eegay saa wuxuu arkay guri qurux badan oo beeri qurux badan yacni beer qurux badan oo aqligaaga uusan suureysanaynin ayuu arkay dhinaciisa ayuu ku arkay ninkii inta uu farxay buu yiri yaa iska leh ilaahayow deedna ilaahay baa ku yiri waxaa iska leh ciddii lacagteeda bixisa ee iibsata hadda ayuuna yacni la qaadanayaa ninkii baa yiri oo waa maxay qiimaheedu ilaahay baa ku yiri waa in aad walaalka gacanta qabsataa oo jannada saas ku gashaan nebiga ayaa intuu haddana qoslay yiri waxaan la yaabay ilaahay addoomihiisa heshiisiinayo oo haddana jannadiisa wada gelinayo waxaan yacni qisadan ka bogan ayaan ka qaadanaynaa walaalkaaga si kasta uu kuu xumeeyo mar kasta uu ku xumeeyo inaad yacni mar kasta iska cafiso oo yacni xumaanba aadan u qaadin xasidnimadana aad iska ilaaliso haddaba dhegeysto waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen qisadani waxaan rajeynayaa yacni inaad anigana codsigayga ii tixgelin doontaan channelkan subscribe aad saari doontaan gambaleelkana on ka dhigtaan si aad u heshaan muuqaalada aan soo gudbiyo waxaad adiga jeceshahay waxaa la dhahay walaalkaagana la jeclow markastana isku day inaad cafiso walaalkaaga si kasta oo kaaga qaldan yahay waxaan idinka sii tegayaa tan iyo kulanto dambe iyo qiso kale insha allah waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh